السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فائدة مساسكا nolosha aadamaha iyo ka qayb qaadashada nolosha aadamaha uu ku leeyahay masaaska ma duugisto. Cilmi baadhisidii u dambeeyay sanadihii u dambeeyay laga sameeyay dhanka caafimaadka oo lagu ogaaday inuu masaajku yahay shayga ugu horeeya ee ka qayb qaata koritaanka jirka aadamaha kana hortaga xanuuno badan, daweeya xanuuno badan, ka hortaga sidoo kale gabowga. Soomaaliha kulay inagu marka hadee duugis aanu maqlo waxaan markiiba soo qabanaa ama maskaxdeena ku soo dhaca muruq saar ama ciraq saar, laakiin caalamka waxa looga isticmaalaa qofku isagoo noloshiisa asaasiga wata ayuu isticmaalaa raaxayn uu jirkiisa ku raaxaynayo markuu daalan yahay. iyo sidoo kale haddaynu hoos ugu dhaadhacno mawduuceenan ama masaaska wuxuu yahay duugista waxay tahay kolley masaaska marka laga yimaado ama duugista waxyaabaha daruuriga ah ee loo isticmaalo oo ay ka kow tahay muruq saarka ama ciraq saarka oo qofku waad garan karaysaa markuu alaabo culus qaado ama wax uu si qaloocan u sheexdo qofku ama si u raacan iyadoo wax loo dhiibayo uu qabto alaabo culus oo kale ama uu miisaankii wax miisaanle lagu soo daayimo wax miisaanle meel ka mid ah jirkiisa kaga dhacan dabcan muruq baa kala ama ciraq. marka laga yimaado kuwaas oo asaasi ahaan loo isticmaalo mashaasku wuxuu daweeyaa oo uu ka kow iyaduna laba lambarnaba galaysa dhanshafka ama madax xanuunka, typhoid oo imika adigaaga soo madaxu ku xanuunayo hadii markiida duugto ama madaxa ama dhafoorada. dabcan waxa laga yaabaa in qaraacistii fara badneed ee ka go'do ama ka yaraataba waxaa soo sadeexeeya oo imika dunida aad loogu dhaqmaaba burburka lafaha in jirka bini'aadanka ah burburkiisa lagala qayb qaato oo qofkii lala tacaalo marka ugu horeysa xaaladiisa caafimaad marka la qofkii dee lafii kala wareegan ama muruqyadii ama cadgo uu ku dhaco in qofka laftii la soo kiciyo ama jirkii la isku celceliyo baadeen marka dambe qofkii wixii lagu kabayay loo isticmaalo. waa ta saddexaad mar afraadka wuxuu noqday kolley marka laga yimaado waxyaabaha jinka qofka noloshiisa kolley dabcan Soomaali ahaan kolley way iska fara badan yihiin xanuunada jinka. marka wuxuu noqday masaasku wax labaad ee lagu daweeyo jinka marka laga yimaado sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo quraanka aynu ognahay mar walba in la tacaalo xaaladaha marka yimaadaan. isna wuxuu noqday xaaladda labaad ee lagu daweyn karo jinka. waa jinka sinu ognahay jirka bini'aadanka iyo dhiigga bini'aadanka uu raacaa. marka horta Soomaali ahaan iyo deegaan ahaan Soomaali ahaan aad uma naqaan masaaska oo deegaan ahaan dhulkeena xitaa aad bay ugu yar yahay, laakiin caalamka goobo dhan baa u furan. goobaha xitaa dhakhaatiirta wax laga yaabaa inaad ka hesho dhakhaatiirta 80% dhakhaatiirta dunida meelo duugiseed, laakiin naga dhakhaatiirteena daayo dhulkan caadiga ah xitaa goobahaas aad ugu yar yihiin waayo ma naqaan dee wax faa'iido ah ama faa'iidada ku dhex jirta. runtii qofka barta ama qofka wax ka garanaya ama qofka dee hore loo duugay ama dee jirkiisu la qabsaday unbaa faa'iidadiisa garan kara. marka horta wax aad u qaaliyo weeye wax jirkaagu xitaa oo jirka bini'aadanka xitaa ku koro oo lafihii space iyo muruqyadii si ay u kala baxayaan sidii isu galgalayaan. isgalgalkaasoo meedhan buu ka hortegayaa oo jirkaaga raaxu ka helayaa xitaa adigoon u isticmaalayn xanuun ahaan sidaad si caadi u isticmaasho. runtii wax aad u wanaagsan weeye jirkaaguna uu ka qayb qaadanaya korinkiisii sidoo kale dee gabowgii ama waxyaabihii kale ee in muruq ku galo ama ciraq burburka lafihii dee in laftaadu si yar u sabto waxyaabahaasoo meedhan buu ka hortegayaa laf waliba
muruqeedii ama dee la weyskabayaan lafaha biniaadamka weyskabaan ama dee kaabayaal bay isku yihiin marka laga yimaado jirka biniaadamka. lafta marka laga yimaado laf wuxuu ka kooban yahay sixdo iyo muruq iyo baruur, waxyaabahaasoo midhan ayaa isku durdurkaya si ay isu xigaan jugihii kusoo gaarayay ama waxyaabihii dabcan kugu dhici lahaa wuxuu kaaga noqonayaa masaajka ama duugistii wax kaa xejiya ama wax kaa celiya oo kaga hortaga gabowgii. sidoo kale in jirka uu si yar ama gabowgii dhabarka oo kale, dhabar xanuunkii, adimadii, waxyaabahaasoo midhan wuxuu kaaga noqonayaa wax ka hortaga.